waxaa u nimaana saaka tacsidaasoo ah maatadii la xasuuqay dadka walaalaheena ah oo dariska aan nahay maatadii laga xasuuqay dhiig baana keenay damqashaana keentay darisaana keenay wada dhalashaana keentay islaanimaana keentay waxaan u tacsiideynaa dadkii qaraabada aan heenay oo dadkii ka dhamaadeen maxaan ku dhahay u tacsiideynaa mid kale dawladda federaalka waxaan ka codsanaynaa inay dadka maatada ah masaakiinta ah reer guuraaga ah oo ayagaba abaartii rafaadkii dhibaatada ka soo baxay hadda inay maxaan ku dhahaa duqeyso ilmihii hooyooyinkii caruurtii waayeeladii inay duqeeyaan aad baan ugu xunnahay waxaan u sheegay dawladda federaalka Soomaaliya inay kala hubsato dadkay duqeynta u wado iyo maatada iyo xoolaaleyda inay kala saarto dawladda federaalka waxaan ka codsanaynaa dadkaas xaquuqda todobadaas qof oo meesha ay ku laayeen ay ku duqeeyeen iyo xoolahoodii waxaan ugu fadhinaa inay magdhow sida ugu dhaqsida badan ay maxaan ku dhahaa ay ku keenaan Jubbaland waxaan ka codsanaynaa iyadana inay daba taagnaato dawladda oo garab nagu siiso dadkaas xaquuqdooda sidii lagu soo dhicin lahaa oo sidii maxaan ku dhahaa xaquuqdooda lagu keen lahaa caruurtaas iyo maatadaas la leeyahay xaquuqdooda iyo macal xoolaha iyo dhan xaquuqdooda sidii lagu keen lahaa waa inay dawladda u daba istaagtaa iyadana intaasaan ka codsanaynaa maxaan ku dhahaa dawladda Jubbaland dawladda federaalkana waa inay idin sida ugu dhaqsada badan ay ku soo jawaabtaa dadkaas xaquuqdooda inay meel soo saarto waa xaquuqdan ka rabnaa xaquuqdooda inay meel soo saarto waay hal la ogaado inta